warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax culus oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kaas oo jugtiisa si xoogan looga maqlay magaalada. qaraxa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay gaari nooca xamuulka qaada oo lagu soo raray walxaha qarxa wuxuuna ka dhacay hoteelka Nuur Doob oo ku yaala agagaarka madaxtooyada, waxaana deganaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka. goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana haatan socda gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeellada ka soo gaartay. dadka dhaawacaha waxaa ka mid ahaa wasiirka haweenka Hirshabelle Caasho Khaliif, wasiirka caafimaadka Hirshabelle Cabdi Macalin, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle Marwe Canab Axmed Ciise iyo xildhibaan hore Jeego, kuwaas oo la geeyey isbitaalka guud ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. hoteelka la weeraray ayaa gebi ahaanba burburay iyada oo laga soo saaray dad dhaawacyo ahaa, waxaana sidoo kale burbur uu soo gaaray guryo ay deganaayeen dad shacab ahaa. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay qaraxaasi, wuxuuna u tacsiyeeyey shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar, gaar ahaan dadka dhibaatada ka soo gaartay qaraxa ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaaladaasi. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa u ballan qaaday in uu garab taagan yahay maamulka iyo shacabka, gacanna ay siin doonaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhaawacyada ay soo gaareen. ammaanka magaalada Jowhar ayaa muddooyinkii la soo dhaafay yara xasilnaa, walow mararka qaar ay ka dhacayeen qaraxyo nooca miinada ah ee dhulka lagu aaso. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.